بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المدن قدومية ومحسنتهي الحلبانة شرفت له وحال كان أصول استاغي هنا إذن مهد علي مانتا أو أهمال تاريخي سيد قدومية نبقو شاغي والشرف الصب أو أصول كردي برلمانك التوانات oo aad dhamaantiin ameen barkatihiin sida la socotaan 2000 ilaa hadda Soomaaliya baarlamaanka loo soo dhisay laakiin waa baarlamaanka ugu horeeyay golihiisa shacabka oo ku dhiiraday oo u istaagay inuu maaragtay gobolka Banaadir iyo dadweynaha degan xuquuqdooda inuu maaragtay oo ku dhawaaqo oo u dhaqaaqo marka waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen oo runtii dadaal weyn ka muujiyay sidii loo dhageysan lahaa doodihii faraha badnaa oo 4 maalmood la soo dhaafay waxaan ilaa inta baarlamaanka ku jiray ma u maleynay inaan arkay qadiyad 9 iyo dhowr qofood ay ka hadashay oo 3 maalin laga hadlay taas waxay tusinaysaa ama qof walba ay tusinaysaa ahmiyadda gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ay u leedahay dadka Soomaaliyeed dhinac walba yihiin iyo qabiil walba yihiin iyo kalar walba ay leeyihiin ahmiyadda ay leedahay iyo dareenka xildhibaan walba uu qabo oo meeshan joogo in xuquuq ay ka maqan tahay gobolka Banaadir sharafkeeda inuu qaato u rabo ma u maleynay inuu jiro xildhibaan diidanay ama ka soo horjeestay waxa laga yaabaa in siiqada ugu dambeysay aan isku khilaafnay walaalehen qaarkood laakiin marna ma aan arkin xildhibaan dhahayo gobolka Banaadir ma mudno arintaasi marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen siday u dadaaleen idaalka ay suubiyaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo guddiga ka soo shaqeeyay oo hogaaminayay walaalkeen Ibraahim Yarow iyo inta la socotay 12 dhowrka qofood ahaa anoo magaca gobolka Banaadir iyo deegaanka dadka iyo qof walba ku hadlaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waliba haddii ay wax soo gaareen ama ajaafooyin ay soo gaareen magacii dadkaas inaan ugu cudur daarto oo noo raali ahaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa Xasan Cali Khayre oo wasiiradooda oo dhan si maaragtay hagar la'aan oo sharaf leh ay u taageereen barnaamijka gobolka Banaadir ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo duubabka iyo culimada iyo dadka Soomaaliyeed oo saacad walba nasiinay talo iyo tusaale iyo waxyaabaha ku habboon gobolka Banaadir in maaragtay la marsiiyo iyo ruux walba oo Soomaali ah oo aan joogin goobtan ama ka maqnaay oo taladiisa iyo tusaalihiisa noo soo sheegay mar walba noo tilmaamay walaalayaal waxa ogtihiin inaan ku jirno usbuuci oo maaragtay xorriyadda Soomaaliya aan ku jirno dabaaldeg fara badan oo dhacay maalin walba oo loo dabaaldegayo Soomaaliya taariikhda waqtiga ay xorriyadda qaadatay laakiin waxaan rabnaa 30 sano kadib dadka Soomaaliyeed ama 60 sano kadib dadka Soomaaliyeed waxay u dabaaldegi lahayn inaan maanta anaga aan falna rabnaa inaan beernaa rabaa inaan ka tagnaa rabnaa qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel oo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed aan gaarsiino inay degmadooda gobolkooda rijinkooda dadka xukumaaya ay soo doortaan si xorriyada u soo doortaan oo ay Soomaaliya ka baxdo waxa la yiraahdo qabiil wax lagu qaybsanaa maamulaha inta wax ku talinay shacabka ay noqdaan dadka talinaya inaan gaarsiin rabnaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqoonsiga maanta aan aqoonsanay oo annaga aan bilownay golaha shacabka uu bilaabay oo ku dhaqaaqay waa bilow aad u fiican laakiin ma aha masaafada ugu dambeysay oo dadka xuquuqda gobolka Banaadir ka maqan la siin lahay waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno boqolkiiba 10 aan maanta hirgelin ama 20 aan hirgelinay 80 maqan inaan dhammaanteen u istaagno oo ka shaqeyno sidaan u soo celin lahayn haddii Ilaahay raali ka noqdo golaha shacabka oo maanta annaga aan taariikhda meesha aragteen aan ka galnayna waxaan rabaa intuusan dhammaanin in taariikhda aan meel ka galno gobolka Banaadir inuu maamul goboleed
madax bannaan oo xor ah sida dowladda jarmalka wadda magaalada Berlin ay u leedahay maamul goboleed u gaar ah inaan ku dhaqaaqno oo aan hirgal hadii Ilaahay raali ka noqdo مع السلامة عبد الله واي قدومي واسو ختمه باذن الله تعالى waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed oo dhan u mahad celiyo mid kale inaan sheego isku duubnideena waa muhiim jiddan maanta baarlamaanka waxa ka muuqda isku duubni weyn oo aan kala go'ol lahayn oo intii joogtay oo dhan inta maqan aan aaminsanahay inay sidaas inoo taageerayso waxa ogaatiin haddaan isku duubanahay oo aan dhammaanteen is wada haysano Soomaaliya masiirkeeda dambe inaan anaga maamuleeno anaga aan matalayno باذن الله تعالى waxa lagu maamaha ugu dambeyntii isku duubni waxa lagu maamaha cid tararay dad tashaday taako labadeed way toli karaan وانا ما اسنتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته